saddex qaybood dadka kamida ilaahay maalinka aakhiro il wanaagsan oo naxariis leh kuma eego alcaaqu liwalidayhi qofka labadiisa waalid caasiga ku ah almar'atu almutarajjila qofka dumar ee ragga iska dhigta sida ragga u hadasha sida ragga u talaabsanaysa sida ragga u labisanaysa saraawiiliya kooran iyo shaarar xidhanaysa iyo wixii la mid ah wadayuuthu iyo qofka dayuuska inagu dayuuska waxaan u naqaanaa qofka saqajaanka ee dhaqanka xun laakiin shariicadu si kasii ballaaran ba u taqaanaayo waxay u taqaanaa qofka ama hooyo ah ama aabba ah oo anshax xumada iyo akhlaaq xumada diinta iyo dhaqanka aan ku wanaagsanayn ubadkiisii oo samaynaya xaali uga ah oo aan maxaan ku yiraahdaa ka celinin kaasa dayuuth la yiraahdaa oo rasuulku wuxuu tilmaamay xadiis kale thalathatun qad harrama Allahu alayhi aljanna saddex ilaahay jannadiisa inay galaan waa u diiday waa ka xarimay mudminu khamrin qofka khamriya cabka oo khamrada macbiil ka dhigtay oo bahasha nafka ku haya cabay wal aaqu qofka caasi walideynka wadayuuth qofka dayuuska alladhi yuqirru fi ahlihi alkhabath midka ehelkiisa oo uu arkayo oo uu maqlayo oo uu la nool yahay anshaxumo iyo diintoodii akhlaaqdoodii oo liidata oo dayacan yihiin haddana aan muraad ka lahayn waxyaabo kale baacsanayo caydsanaya oo ku mashquulsan orid iyo ubadkuna ay dayacan yihiin diin iyo dhaqan ahaan dayuus weeye kaas jannada gali maayo nabiga alayhi salaatu wasalaam